وقيب كمية حلقوين كتحناها كوبرنيني جيكوري waxaa isku dayeynaa inaan cover gareyno input boxka qaabka qoraalka ku jira loo soo akhrisan karo adoo isticmaalaya jQuery. Marka ugu horreyn waxaa u baahan tahay inaad soo furatid text editor si aad mataqaana ugu qorto qoraalkaaga. Waxaa isticmaalayaa dirtaan text editorka loo yaqaano Sublime. Ugu horreyn marka waxaa laga baahan yahay inaad mataqaana soo qaadatid faylka jQuery-ga oo hadda waa kana waa faylkan jQuery-ga la soo degtiin adigoo kala soo degaya linkiga halkan hoose ku qoran waa website-kooda jQuery.com adigoo kala soo degaya linkigaasi inaad mataqaana la soo degtiin faylka jQuery-ga. kadib markaa la soo degtiin waxaa sameynaysaa marka waxaa sameysanaysaa fayl cusub fayl baa leedahay new file kadibna waxaad bixinaysaa marka halkan index.html oo kale markaa sameeyay kadib waxaad ku save gareysaa isla folderka dhex joogo oo ah jQuery practical folder ku save garay. kadib marka halkan wax ku qortaan marka html tag for magac u sameey title c waxaan ku qoraynaa tag input value qiimaha text box ku jira noo soo akhrino soo qaad. marka body-ga dhex nimaadno waxaan ku qoraynaa marka ugu horreyn taggeran wax ka soo qaadano text boxkaas input waa text name no siin kartaa hadii kale ka deynto marka ma hadana name u baahnin waxa kale siinna marka wax loo yaqaano id si aan u soo akhrisano xogta waxaan isticmaalaynaa id-giisa marka ku qaadan u bixinaa oo kale tag text qoraalka soo qaad. kadib marka waxaad sameynaysaa button ma sameysanaysaa button marka ay sameysiin waxa u bixinayna ka soo qaad waxa rabnaa button marka click la siiyo in mataqaana asiga qoraalku uu noo soo qaado waxa leenahay kala hadda click oo kala bixi sida asaga laftigiisa waxaa siisaa buttonka id buttonka noo sii waxaa bixisaa magaca laftigiisa ah click button ama waa btn-ka wax laga soo gaabiyaa button weeye. inta markaa sameeyay kadib waxaa sameynaya marka meesha qoraalka daabacan lahaa link halka iga joogi marka la joogo linka kadib marka waxay sameysaa h1 oo waxa meesha qoraalka soo daabacanayo halka marka waxa ugu qortaa oo kale meesha qoraalka lagu soo bandhigayo. okay marka inta sameyso kale hadda inta aad instagram bala tijaabino folderka noo soo fur marka no index file ka kici marka furtin wuxuu ku saaraya marka ujeeda halkan input box meesha qoraalka ku qoran halkan button click la siinay waxa rabnaa meeshan marka inuu mataqaana waxa ku qorno oo bartaan inagu bedelo. hore marka waxa sameynayaa korba waxa ugu yeernayaa faylka jQuery-ga waxa qoraya marka script waxaan waa fayl javascript kadibna waxa uu sheegayaa marka path ku yaalo waxa qoraya marka halkan jQuery waa version-ku iyo magaciisa soo qaadanaysaa si uu qoran yahay soo qaado. kadib marka inta sameysid halka hoose imow html hoosteeda halka marraha furtaa tag script tag marka furtid kadib marka jQuery marka koodkiisa halkan ku qoraysaa hore marka waxa qoraysaa alarm $sign kadib waxa leedahay document.ready function kadib waxa furtaa marka calaamadaha parenthesis-ka furo marka furto kadib marka halkan waxa ku qortaa marka baranka marka click la siinayo function marka koodkiisa qor marka remote na click siino koodkiisa qor kadib waxa dhacdaa halkan marka waxa gelisaa id-ga buttonka wato waxa weeye hash click button dot marka waxa leedahay marka dot on click weeye marka click la siiyo buttonkaas function kadib barakadada fur marka furto kadib marka waxa ku qortaa marka barakadada furto kadib halka waxa soo gelisaa marka id-ga wato muxuu ahaa input box-ka ah oo id-giisu wuxuu ahaa text sidoo kale dooraysan soo qor marraad barakada fur haddana hadda hashtag hadana tag text
dot fal wax dhiganta waa value baa laga soo gaabiyay sida nin muuqata dot value noo soo qaaday marka waxa ka hormarsiinayna marka aan soo qaadan waa inaan ku shubanaa qiimaha variable na fiirsanaa weey marka qorkadina waxa bixisa variable test nagu bixi variable test wuxuu noo sidaa waxa ku jira tag text wax ku jira kadib marka waxa dhacdaa marka halkaan kadib waxa dhacdaa marka tag formula labaad waxa dhacdaa marka hadana h1 oo ah waa tag arabno dot text la mid tahay waxa ku jira test waxaan sameynaa hadda badhankaas abuuranay marka functionkiisa ah marka click la siiyo in mataqaanaa uu sameeyo code kan ran gareeyo gudihiisa ku jira kan wuxuu sidaa variable bas meesana variable kaas wuxuu sidaa qiimaha ku jira input box kan qiimaha ku jira input box ka kadib marka waxa dhaanay h1 oo ah meesha aan qoraalkan ku soo muujino text qoraalkeedu waxa ku bedeshaa waxa ku jira mar walba test ku bedel inta markaas sameeyno saf gareena kadib marka page-kana oo refresh gareena marada page-ka ayna marka waxa ku qoreena ka soo qaado kala hada page magaciisa sahtage oo kale okay click si marka hada waxa aragtaa meesha dirta taad kale inuu wuxuu bedelay sahtage inuu bedelay marka waxa inta ku qor kartaa waxa ku qortaa kala dhigi kartaa my computer dhigi kartaa marka anything wax walba waa ku qor kartaa waxaad kaga tagayaa sidaas nabadgelyo